warbixinta hay-adda Refugees International ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 3 milyan oo Soomaali ah ay yihiin barakacayaal kuwaasi oo nus milyuun ka mid ah ay ku sugan yihiin caasimadda Muqdisho. dadkan qaarkood ayaa nolosha barakacaha ku jiray ku dhowaad 30 sano iyadoo ay jiraan dad si joogto ah ugu soo barakacaya caasimadda Soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in bishii Oktoobar ee sanadkan ay koox khubaro ah oo hay-addaasi ka socota ay booqdeen Muqdisho si loo qiimeeyo xaaladda barakacayaasha isla markaana la iskula eego qaabka xal waara loogu heli lahaa sida sharciga caalamiga ah uu dhigayo. xalka waara ee barakaca ayaa ah marka uu qofka soo barakacay uu ka maarmo kaalmo iyo in la ilaaliyo. xafiiska duqa caasimadda Muqdisho ayaa sanadkan laga furay xafiis ka shaqeeya sidii xal waara loogu heli lahaa barakacayaasha. sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa aasaastay xogeyn qaabilsan helista xal waara taasi oo ay ku kulmaan dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha ay arrintani khusayso. arrintan ayaa sahashay in la dejiyo siyaasad qaran oo dib u dejinta barakacayaasha qaabilsan iyada oo laysla soo qaaday fikrado kala duwan oo ay ka mid yihiin in hoy loo helo ama dhul kale la siiyo. allah u naxariisto maayirkii hore mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso wuxuu sameeyey xafiis la yiraahdo xafiiska xalka waara oo loogu talagalay in arrimaha barakacayaasha iyo baahiyada ka jira ama dhibaatooyinka ka jira xal loogu gaaro aan hore oosan u lahayn. xafiiskaas ayaa loogu talagalay arrimaha barakacayaasha. gudoomiyaha hadda joogay gudoomiye cumar isagana sidoo kale shaqadii meeshii ayuu kasii bilaabay. barakaca degan magaaladan aada ilaa waxaa lagu qiyaasaa 800 ilaa 500 oo barakac ah. hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin qorshayaasha barakacayaasha meel fiican ayay noo mareysaa. sida loo sheegay hay-adaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaas intii maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xooga u saarayaan waa sax. hadda waxaan diyaarineynaa ilaa iyo 300 oo qoys in loo dhiso guryo caalami ah. dhulkii hadda waa la diyaariyey. waxaa dhiman in shaqada hooshii la gudagalo. sidaas ogtihiin ay noqdaan guryo markaasi kii qof bini aadan ku noolaan karo aysan buush aysan ahayn ama bac uusan ahayn uu noqdo deegaan loo sameeyo shaqo abuur oo kusoo saarta nololeedkiisii ayaa hadda noo diyaarsan. sidaas ogtihiin wasaaradda gargaarka iyo annaga iyo maamulkeena iyo hay-adaha markaasi gacanta nagu siiyana wada shaqeyn fiican ee nagala dhexeyso. sidaas ogtihiin roobabkii hadda da-ay oo kale si aada xawli ah ayaa gudoomiyaha gobolka u horeeya iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo wasaaradda iskaashaneynana gaarsiinay agaryadii markaas ka hortaga ahaa ama dhiigjoojinta ahaa loogu talagalay. 500 dhalinyaro oo loo sameeyey shaqo abuur loogu talagalay inay kusoo bandhigaan xirfadahooda aqoontoodii ayaa hadda waxaan rabnaa mar dhow inaan ka diyaarino daar ku yaala degmada xamarweyne oo loogu talagalay dhalinyarada barakacayaasha ama deegaanka degan degmooyinka gobolka banaadir lagu tababaray tababaro lagu siiyey inay kusoo bandhigaan xirfadaha shaqo ama xirfadahoodii ganacsi. hay-adda ayaa sheegtay in barakacayaasha ku sugan caasimadda ay u baahan yihiin in si degdeg ah loo dhaqangeliyo qorshayaasha la dhigay. sidoo kale hay-adda ayaa ugu baaqday hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR inay kordhiso dhaqaalaha ay barakacayaasha Soomaaliya ugu talagashay. warbixinta hay-adda Refugees International ayaa lagu sheegay in barakacayaasha ku sugan Muqdisho ay ku nool yihiin duruuf adag iyagoo aan haysan adeegyada asaasiga ah. waxaa sare u kacay xaaladda nafaqa la'aanta. waxaa kaloo ay hay-addu sheegtay in barakacayaashu ay dhibaato kala kulmaan dadka iska leh dhulka ay degan yihiin. warbixintan ay cusub ee hay-adda Refugees International soo saareen ayay ku soo bandhigeen tallaabooyin ay kula taliyeen dowladda federaalk ee Soomaaliya kuwaasi oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa mashaakilka barakacayaasha. waxayna ugu horeyn hay-addu sheegtay in loo baahan yahay in la xoojiyo xidhiidhka dowladda federaalka ah iyo dowladda hoose ee caasimadda Muqdisho. waxa aanay hay-addu si gaara ugu baaqday maamulka Banaadir in ay mamnuucdo in si qasab ah barakacayaasha looga eriyo meelaha ay deegaan ee gaarka loo leeyahay. talooyinka ay hay-adda Refugees International soo bandhigtay ayaa waxaa kale oo ka mid ah in laga shaqeeyo sidii loo yareyn lahaa doorka ay qaadanayaan dadka loo yaqaano horjoogayaasha amaba ilaaliyaasha ee sheegta inay mas-uul ka yihiin dadka barakacayaasha ah oo dhexda u gala deeqaha loogu talagalay iyagoo oo sheegta in ay kira ahaan u qaataan deeqaha qaar ka hor intaan la gaarsiin qofkii barakaca ahaa. warbixinta hay-adda Refugees International ayaa ugu baaqday deeqbixiyayaasha caalamiga ah in la xoojiyo kaalmada loogu talagalay samafalka iyadoo bogaadisay in deeqbixiyayaashu ay 75% soo xereeyeen lacagtii 1 bilyan ahayd ee dollar ee ay qaramada midoobay hore u codsatay sanadkan. ugu dambeyntii hay-adda Refugees International ayaa warbixinteeda ku sheegtay in guud ahaan xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya ay tahay mid weli liidata iyadoo in ka badan 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin kaalmo bini'aadanimo degdeg ah.